أنا مركا وحنا لنا هاي حكومة الصومالي لان أمنية جود الصومالي لان وقيح أي حير كان 51 2012 إذا مدى بليسكي هنا أي كهد لان حقه حيقول ليهين واجبات الدستور كفر يانو يهي قفك موادن كيه انتو كسو جاي هي جودها حدود دستور كأي شرعية الصومالي لان إذا مدى بليسكي إذا مدى أمن جو حيكون تعقلانيا حولها مواد كاسي يقول لي يعني حين دابك دستورك يو حيرك نبت قليد الجود مركو الدبده وقبحنا waxay ku soo celinayeen xeerkaas oo talaabo sharciye bay ka qaadayaan waxaan markaa ogeysiinayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland waayeelkiisa iyo culimadiisa iyo haweenkiisa iyo dhalinyaradiisa iyo waxgaradkiisa in uu yahay mudaharaadkaasi mudaharaad khayr sharciya waxna lagu yeelayo lagu wiiqayo lagu dhaawacayo nabadgelyada Soomaaliland waxaan kaloo u sheegayaa shirarkii iyo wada hadaladii aanu soconay shirkoodii u dambeeyay bay ku sheegeen inay iyagu ka baxeen oo nagaga baxeen ciidamada amnigana waxaan u sheegayaa oo faraya inuu mudaharaadkaasi yahay mudaharaad aan sharci ahayn oo dastuuri ahayn talaabada ku haboon ee sharciga lagu sugayo ee nabadgelyada lagu sugayana ay maxaan ku dhahday ku qaata ay ka qaadaan arrimaha kale doorashada aakhirkeeda waxaanu ku heshiinay intii dhaweyto oo labada gudoomiye madaxweyne ku-xigeenkuna nagu dhex joogeen in aanu ku heshiinay koow in la dhamaystiro oo la dedejiyo magacaabistii iyo u codayntii baarlamaanka maxaan ku dhahdayay guddigii doorashooyinka meelahay doorashooyinku ka habsaamayaan waxaan dadweynaha u sheegayaa muranka faraha badan leh ee ragaadinaya ee cunaya waqtiga ayaa keenaya inay doorashadu iscunto waxaanu ku heshiinay in xeerka la raaco guddida la qaban qaabiyo guddigaasi ay fadhiisato guddigaasi waxay ku shaqeynaysaa xeerkaasay ku shaqeynaysaa xeerka koob iyo sagaashanaad 2020 kaasina waa xeerka 14aad 2012 doorashada aakhirku waxay ku soo ururaysaa in labada xeer lagu shaqeeyo wixii looga baxdaana ay noqoto dastuurka annaka xusbiyada qaranka intaanu ka kulanno iyo intaanu heshiiska ku nahay iyo intaanu isaga imanayno waxa weeye waa xeerarka qaran baynu nahay 13 sanadood soo jiray sanadkii 13aad galaya maanta waxaynu haynaa oraha fara badan oo mararka qaarkood madaxda xusbiyada ay oranayaan waxaynu soo boorama tuubaynu dib ugu noqonaynaa oo ah shirbeeleed baynu dib ugu noqonaynaa adduunyaduna taa way nagala soo gudubta inankuna waynu ka gudubnay meel ay Somaliland dib ugu noqotaa ma jirto Somaliland dastuur iyo xeerar iyo sharci bay leedahay xeerarka iyo sharcigaas mid walba xaq siinaya anigu bilaa xeer halkan kuma fadhiyo madaxweynuhuna bilaa xeer iyo bilaa dastuur kuma fadhiyo xusbiyada samaysanina bilaa xeer kuma fadhiyaan liisan baan leenahay waqti loo dhacayo waqtigiisa anagu waxaanu leenahay laga dedejiyo annagu waxaanu leenahay wada hadalku wuu furan yahay albaabka dawladda wuu furan yahay ka madaxweynaha wuu furan yahay ka xusbiga kulmiye wuu furan yahay inaanu isfahamno oo wada hadallo oo ka wada hadallo arrimaha jiraanu doonaynaa albaabadu way ka xidhan yihiin sharci darrada qaranka lagu duminayo